waxa ugu qiimaha badan ee uu aadamuhu gaari karo ayaa ah farxad iyo reerayn waarta, waqtigiisana ku qaata kalgacayl iyo wanaag si ay u noqoto mid xusuuso qurux badan ku reebta noloshiisa. Waxa hubaal ah daawada in qof walba oo inaga mid ahi uu jecel yahay in uu noqdo mid farxad wehel u tahay. Waxaase jira wadooyin iyo habab lagu kasbado farxadda waarta, taas oo aynu maanta muuqaalkeenan ku garfayn doono. midda aan marnaba laga gudbi karin ayaa ah alla ka cabsi. Midkii Rabbi ka cabsaday qaatay awaamirtiisa kana tagay nawaahidii uu Allah subxaanahu wa tacaala uu ka reebay, kaas ayaa ah midda haleelay farxadda waarta. Kaas ayaana ah ka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u nimceeyay labada daaroodba. midda labaad, bixinta sadaqada haba yaraatee waxay farxad gelisaa quluubta, yaraysaana murugta, waxayna kordhisaa oo ay badisaa risqiga Allah subxaanahu wa tacaala. midda saddexaad, ducada iyo istighfaarta. maxaa yeelay istighfaarta iyo ducada Rabbi subxaanahu wa tacaala waxay qofka ka dhigtaa mid aad u faraxsan, murugta iyo dhibaatadana mid ka kor qaada. waayo maxaa yeelay qofku waxa uu u dhiibanayaa arrimihiisa oo dhan Allah subxaanahu wa tacaala. Allahna subxaanahu wa tacaala waa u fududaynayaa wax walba oo ku cuslaa, dembi dhaafna uu uga dhigayaa. midda afraad, badinta salaada. waayo salaadu waa albaabka laga gala farxadda, iyadaana qofka u horseeda reeraynta iyo farxadda waarta. markaa ku dadaal walaalkay ama walaashay, ku dadaal salaada, iyada laga helaa farxad oo idile. midda shanaad, ku kalsoonow naftaada. mar walba oo aad isu aragto mid muhiim ah nolosha, waa mar walba oo aad sii farxayso, farxaddaaduna sii siyaadayso nolosha. midda lixaad, u samee noloshaada hadaf iyo riyo ay ku noolaato, si ay ugu faraxdo mar walba oo ay u dhowaato guushii iyo hadafkii ay xariiqatay. u samee noloshaada hadaf iyo ujeedo ay ku socoto. midda toddobaad, ahaw mid ku dhoola caddeeya wejiga walaalkii. waa sadaqa siduu suubanuhu inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam: laa taxqiranna min almacruufi شيئا ولو أن تلقاك بوجه طلق. guntii iyo gabagabadii, ahaw mid faraxsan. farxaddu waxa ay firfircooni gelisaa nafta, waxay kaa dhigtaa mid karti u saaxiib ah, noloshana qiimay u yeeshaa. toddobada qodob ayaan jeclaystay in aan idinla wadaago maanta, si aynu biidnillaahi tacaala u noqono qaar nolosha ku faraxsan inta u hadhay. haddaba adiga waxaan kaa codsanayaa inaad sii gaadhsiiso walaalka, si uu isaguna qodobadan u tixgeliyo uu kuna dhaqmo, farxad waartana u helo biidnillaahi tacaala. dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa farxad waarta. waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.